عن كل شيء إسليدي الأمانة بكار الرم رمال رام سبان بكار الرم دبقي أنا ورد بكار متخانرت سوق كل شيء إسلي سوق ما هو بكار السوق هذا كرم سوق بكار أنا ما أروح شيء بين آخر سنة ليري بكار النيم وسق ما كدادي هاي ما جرت لامي ولا صار لامي أبو سكر كذا لك سبحان الله ماشي صار خبطي ابتدى وحلو دقي نين إنك ما كلكسا كل ما راح وجرام نسي جدا نين أمليه يعني عن ضبطك كتابتي عند هذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كسود هذا معلم القناة أصحابتنا عصب نصود وين سعادة كوهن رجوعنا وماستين لجوجتان كنا طبعا مركب مشغول تهاي أو شغل كجورت إذا حريقة وأنا وقتي ويسيد لكن أنا خدني بيزيا أيا واحد سجلتي فيديو يرو كليب كأ أو بابا جي أو أعرفتين تنتي طبعا شخصيا دارونتي نيشا قرت بابا جي طبعا قف عن طيارو هاي ميهي قف عن جعلها تامها رنتي أو odaga dadku qalad ay galas waa og yahay qaladku ay galeen de wax oo labada noo gooni ah ina midun soo macnaha oo oga hadlo arin noocaas aan ka hadlo marabi laakiin waxa rabaa inaan dareensiyo hal mid qofka si kasta oo isku xanaaqsantiin ama qalad uu ka gal ka tawnaysid macnaheedu ma inuu qof xun yahay laga yaabo inuu aan xun yahay qofka wanaagsan yahay wuxuu sameeyay wax aan ku faraxay anoo hadda nacab ayuu haddana wuxuu sameeyay waxaan ku farxay oo isoo jiitay waxaas ay wax kale ma ahan dabcan odayga wuxuu imaaday Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxa soo jiitay waxa la weydiiyay su'aal oo ah waxyaabihii uu ku arkay Islii wuxuu isla bardhigay Islii iyo bakaaraha Muqdisho wuxuu doortay dalkiisa hooyo mid kale soo jiitay aan ku taageeray waayo qofka si walba dalka uu wasaq u yahay am uqurxin yahay am u fiican yahay am u xun yahay inta oo dalkaaga hooyo ka maarantid Soomaalidu waxay dhadaan lama huraan waa cus jilaal inuu dalkiisa hooyo amaano shakhsiyan aan ku taageersanahay waan ku farxaa wuxuu iga sameeyay oo dhan meel taala taayada ma wax aan macnaha aan ku soo qabanayo wuxuu iga sameeyay oo wax aan asano gooni ah ana asayso ilaahay marka taayad ina hadda aan ku laba qaso dhaho ninka hadda kor qalad ka galeenayo amal ku xadgudub wax fiican ma ahan shakhsiyan waxaan ku taageeraa wadaninimo ayuu muujiyay dalkiisa ayuu amaanay oo ku amaana dabcan waxa laga yaabaa inay isweydiisid ama ku mashquushaan wuxuu ninka oday iga sameeyay oo aan leeyahay runtii ma taageersani laakiin qasama qofka inaan taageero ama jeclaado laakiin waan kala aragtunaan karnaa laga yaabaa in wax ka tabanayo taayada waa wax gooni ah كم مشغولين لكن وحنا روا إن عاد هذا الكيك قاعدتان لبا فكر ومهمة هذا فكرة مهمة حياتي قفك حضان عبتاي واحد ناس دوس ميكو تاجر إيوه إن أو رنتي موجي والدنيا نمو تي أو وينت أو فعنت والله يرهبي تبدأ قربها كنول إن يسميان طبعا قف مركو ضمه مري هذا كي مدن نعم معهن دي سومالنا هاي لكن dadka qurbaha joogay waxaan ku arkay inay amaaneen dalkooda hooyo ay jecleen oo haday jecleen hatta macnaha kooda luuliyo isku imaanay calan la qaadanayo bala then wixii koodli ka dambeeyay walba turkiis uu ku laabanay taayada iska cad way shaqo ma jirto ama maamul goboleedku ka imaado uu ku laabanay laakiin ninkan adiga runtii hadalkiisu soo jiitay aniga shakhsiyan wuxuu amaanay bakaaraha uu caayay Nairobi taayada oo ku taageera waan ku amaana wuxuu ku mudan yahay بالشرف اللي سيه واي صابته حيتاي طبعا waa muwaadin Soomaaliyeed in dalkiisa uu ku faano waxa jira nin siyaasi caan ah magaciisna sheey marabo oo aan ka arkay qadiyada Soomaalida inay ku weyn tahay waa siyaasi caan ah la yaabo in aan aragtis jeclahay adan nacabtahay laakiin macna ina sigala muhiim ah laakiin isku aragti kasta waxay asaga in qofka dalkiisa uu amaano uu ku faano dadkiisa uu jeclaado adeeg ku fiican tahay Soomaaliya ana ay fiican tahay ilmahana u fiican tahay dalka u fiican tahay laakiin wax yar wasaq ah oo ama qalad dalka ka aragtay ina babuunisid waxa ka fiican ina qarisid wax wanaagsan aad sheegtid تا أيده وحوف في عنت أنت بدن
dadka oo wariyaasha ah ayaa waxaa moodaa inta badan inaysan sameynin oo ay caayaan hadday arkaan wax xun inay dalkooda aflagaadeeyaan caayaan ay runtii ammaanin taa ayadan wax fiican ma ahan baabajeyna waan ku ammaanaa runtii inuu ammaanay dalkiisi hooyo uu moogan yahay wax ka yar 72 saacadood ayaa wuxuu sheegay inuu kala dooran lahaa Nairobi iyo Muqdisho inuu kala dooran lahaa uu dooran lahaa dalkiisa hooyo ee xamarta si walba xun tahay si walba qurxan tahay waa dalkiisa hooyo kama maarmo horaan in dhahay lama horaan waa cusub jilaan Soomaaliya horaan u dhahday videogan waxaan rabay inaan isku soo gudbiyo asxaabta ninka odagana de hada is leedahay wuxuu ka sameeyay maxay tahay waa wax aan asano gooni ah ma laga yaabo inaan sheego dabcan asay video haduu gaaro waxa laga yaabaa inuu dhahnayo ballantan saameen laakiin wali ma sheegin ogow hay qasbin inaan sheego wasaqta ma inaan sheego ma laga yaabo waxaan asano gooni ah oo dhacay muddo sanad ka hor inaan ku mashquulshaan muhiim ahan asxaabta video inta ku soo gabagabeynaa haddii tahay mar kula jiraan asoo boqotid fadlan subscribe